ilaahay kiran isku day doona hadii Allah subhanahu wa ta'ala yiraahdo in aanu arinta iyada ah aan si gaar ah u fiirino insha Allah barakallahu fiik sheekh Allah ku barakay insha Allah billahi karim su'aashayna ugu dambaysa hadii Allah subhanahu wa ta'ala uu yiraahdo doorkaani waxa weeyaan inta badan ma taqaan su'aalo gabdho u badnaay maanta tani waa wiil weeyaan waxa uu leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh waxaan deganahay South USA buu leeyahay wadanka qaybtiisa koonfureed oo ay ku badan yihiin buu yiri xisbiga jamhuuriga Republicanka waxa uu yiri meeshaasi wax ayda ma laha dawladdu waxba ma bixiso hatta hadaad lagu laadahay wax ka oranayaan buu yiri shaqayso weer carruurtayda aniga ayaa u shaqaysanayay in kan badan yaanaan lahaan buu yiri laakiin biilka iyo kirada iyo wax walba waa aan dabarayay wixii gabadhii aan qabay waa iga soo tagtay oo waxay soo aaday buu yiri state-kaasi Minnesota la yiraahdo oo alaaba maaragtay aydu ay ku badan tahay buu yiri carruurtiina waxay geysay buu yiri meel day care la yiraahdo anigu ma aanan rabin buu yiri in aan mataqaana xagga dawladda iyo waxaasi aan ku dacweeyo baliyada choice-keeda ayaan siiyay buu yiri cabaar baan ka maqnaa muddo kadib magaaladii baan tagay ay carruurta aadeen si balaan xaaladdu siday tahay u ogaado carruurtii markii aan wareystay kuwada waaweyn waxay ii sheegeen buu yiri in marka maxaan ku iraahday iskuulka ay ka yimaadeen 4 o'clock straight loo geeyo buu yiri day care-ka oo hooyadood ay la aado halkaasi oo ay mataqaana dhaqaalo ka hesho buu yiri kadibna waxa ay ka soo rawaxaan buu yiri 10 habeenimo oo gurigii la keenay buu yiri carruurtii oo daalan 5 subaxnimo ayaa hadana la kiciyaa buu yiri 7 o'clock ayay iskuul leeyihiin subaxiye carruurtaasi xaalad aad iyo aad u adag ayay ku jiraan aniguna markii aan wax badan isku dayay waxba suurtagal waa ay noqon waayeen buu yiri qolka waa ay ku xiran tahay buu yiri shaqo faada hadii carruurta saasay ku jiraan waxa laga yaabaa buu yiri inay gacan shisheeye ay ku dhacaan haddii aan awoodi karo buu leeyahay carruurtii aan biisho extra waxa dheeraadka ama khasab baa buu yiri in meel carruurta loo geeyo aan maxaan ku iraahdaa xaaladooda ay ku adag tahay sheekh maxaad nagula talin lahayd buu yiri aniga iyo iyada labadaba فليتفضل مشكورا وماجورا بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد أرتا كربدا الله كافيدو إلهي بان كوبرنا تبارك وتعالى إنه كربدا إيا والكاس أولاد هذا إيا عرور هذا إيا زوجد هذا كاهيستا إلهي إنه كافيدو تبارك وتعالى مركي قربها اللي يميت qoysas badan waxyaalahay ku dumeen waxa kamida dhaqaalaha ayaa kamida wala midii haweenkii nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam markay dhaheen biilka noo kordhi intuusan nabiguba jawaab ka bixin alayhi salatu wassalaam ilaahay baa min fawqi 7 samaawaat jawaab jibriil ooga soo dhiibay ya nisaa an-nabiy in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha ila aakhir al-ayat إلى إلهي وكيلا تبارك وتعالى هذا أدوية ربطان كاليا والذين سين فرقها الذين كبوحين لكن أنا يدين كاسم النقانه هذا إلهي آخر ربطاننا الله يا رسولي آخر هذا ربطاننا وحو إلهي يدين قري يدين كأوركه يدين كتشرة واي ميسان يكرر للنغضة غيركو حال دونيا إنا يقناعو أي كل نقمان إنا يكوذا النولادان وحو إلهي سي تبارك وتعالى adduunyadu qiimo badan ma lahan weliba qiimo ma lahan markay aakhiradaada ay ku weedaarinayso weliba qiimo ma lahan markii ay reerkii isjeclaa ay kala fogeynayso weliba qiimo ma lahan markii ay xaaraan sidaa daraadeed adduunyadu qiimo ma laha markii ay noocaa tahay waxaan ku talin lahaa oon reerkaa ku talin lahaa ogula talin lahaa horta ninka waxaan dhihi lahaa adigaa nin ahe horta xigmadeedii isticmaal xaaskaagana ka dhaadhici aakharana xasuusi waa wax lagu farxo qolkan bay ku xidhan tahay qolkanna waxaan kaga warqabnaa oo aan ogahay marag iyo makhraatina ka ahay in ummadda khayr iyo wanaag looga sheego haddii wanaagga iyo diinta iyo khayrkaasi ilaahay inuu ku anfaco qalbigeeda uu ku qaboojiyo ayaa suurtagal ahe horta waa qof ehludiin ee xagga diinta ka soo maro ku waani inaynan idinkana aynan kala fogaanin
carruurtana aynan xaaraam siinin carruurtana ayna gaalo gacanta u gelinin adigii zawjka ahaa oo suuf iyo xanjo waxaad isku gunudaba doonaya inaad reerkaaga biilatana gabadha muslimadda waa inay zawjkeeda ku ateecdo oo ay ku maqasho oo ay ninkeeda hadduuba carruurteeda biilan kara asaga ayaa asal u ahe gabadha horta waa inay arrinkaa maqashaa ninkuna waa inuu xikmad iyo siduu reerkaa iskugu soo noqon lahaa waa inuu ka shaqeeyo biidnillahi tabaaraka wa tacaala gabadha waxaan leeyahay bal dib u yar xisaabtan ninkii waad kala fogaateen dib u xisaabtamo ilmihii markay iskuulka ay ka imaadaan haddanana meel kalea la sii geeyaa oo lagu haynayo dayib 10 habeennimaa laga keenaa isma taqaanaanoo midba lug iyo gacan baa mataqaana midba gacan iyo lug buu jiidayaa way seexdeenoo 5tii subaxnimaa haddana la jafay soo xaqiiqadaba ma aha ilmaha inaynan waxba isu ahayn caqiida ahaan waxba isuma tihiin xataa waalid ahaan waxba isuma tihiin xataa dareen ahaan waxba isuma tihiin so ooma eko inaad aabbahay ka goysay dhalay so ood ka fogaysay so ooma eko allihii abuuray ayaga in lagu xidho la doonayey haddayba noocaa yihiin inaad ka fogaysay so ooma ekaanayso inaad xoolo ku raadisay awlaaddaadii so ooma ekaanayso saa haddana sa ay tahay ma xukumin mas'alada waa arrin qoys waxay u baahan tahay in intii ninka iyo zawjadaba la arko waxbaa laga yaabaa inay isku diidan yihiine in la dhex galo oo la soo dhoweeyo oo gabadhuna bal waxa ay tirsanayso in la dhegaysto oo ay arrinkaa u samaysay ninkuna bal waxa uu tirsanayo in la dhegaysto oo wax ku diidan yahay marka u dambaysana khulaasada iyo gebagabada meel la iskugu keeno oo ama ninku loo garaabo ama gabadha loo garaabo oo la yidhaahdo gabadhu arrinkaa way ku qasbaneed maxaa yeelay dhib intaa la eg baa haystay isku soo celceliyo weli kama quusanin reerkaa in life loo dhex galo oo reerkaasi qaraabo iyo qoys iyo culummada ay dhex galaan hase ahaatee waanada guud gabadh yahay zawjkaaga ku celi carruurta nin yahow carruurtaada biilo diintana bar carruurta diintoodana bar idinkuna reer ishaysta gacmaha berri in la dhintaa laga yaabaaye ama qof uu dhinta ee carruurta yaan waddan gaalay joogaane yaan carruurta gacanta loo gelin ma ogtihiin horta weebkii aanu dacwada ka faafinaynay qoysaska aanu sidan oo kale u dhisaynay inay gaaladu xidheen way xidheen limaada sababta loo xidhayo waxaa weeye wax kastaa ku maraamursoodeene in wax la dhiso oo reeruhu ishaystaan oo carruurtu ay dad muslimiinoo dhaba ay noqdaan waa arrimaha ay qolalkan iyo dacwadan iyo culummadu ay ka shaqaynayaane dad badan baan rabin gaalo iyo munaafiqiin isbiirsatay iyo jawaasiis baan rabin sidaa daraaddeed war berri ilmahaba waad ka dhiban kartaaye gaalaha u gelinin ilmahaaga carruurta ogeynayso weliba qiimo ma lahan markii ay xaaraan sidaa daraaddeed adduunyadu qiimo ma laha markii ay noocaa tahay waxaan ku talin lahaa oon reerkaa ku talin lahaa ogula talin lahaa horta ninka waxaan dhihi lahaa adigaa nin horta xigmaddeedii isticmaal xaaskaagana ka dhaadhici aakharana xasuusi waa wax lagu farxo qolkan bay ku xidhan tahay qolkanna waxaan kaga warqabnaa oo aan ogahay marag iyo makhraatina ka ahay in ummadda khayr iyo wanaag looga sheego haddii wanaaggaa iyo diinta iyo khayrkaasi ilaahay inuu ku anfaco qalbigeeda uu ku qaboojiyo ayaa suurtagal horta waa qof ehludiin xagga diinta ka soo maro ku waani inaynan idinkana aynan kala fogaanin carruurtana aynan xaaraam siinin carruurtana ayna gaalo gacanta u gelinin adigii zawjka ahaa oo suuf iyo xanjo waxaad isku gunudaba
doonaya inaad reerkaaga biilatana gabadha muslimadda waa inay zawjkeeda ku ateecdo oo ay ku maqasho oo ay ninkeeda hadduuba carruurteeda biilan kara asaga ayaa asal u ahe gabadha horta waa inay arrinkaa maqashaa ninkuna waa inuu xikmad iyo siduu reerkaa iskugu soo noqon lahaa waa inuu ka shaqeeyo biidnillahi tabaaraka wa tacaala gabadha waxaan leeyahay bal dib u yar xisaabtan ninkii waad kala fogaateen dib u xisaabtamo ilmihii markay iskuulka ay ka imaadaan haddanana meel kalea la sii geeyaa oo lagu haynayo dayib 10 habeennimaa laga keenaa isma taqaanaanoo midba lug iyo gacan baa mataqaana midba gacan iyo lug buu jiidayaa way seexdeenoo 5tii subaxnimaa haddana la jafay soo xaqiiqadaba ma aha ilmaha inaynan waxba isu ahayn caqiida ahaan waxba isuma tihiin xataa waalid ahaan waxba isuma tihiin xataa dareen ahaan waxba isuma tihiin so ooma eko inaad aabbahay ka goysay dhalay so ood ka fogaysay so ooma eko allihii abuuray ayaga in lagu xidho la doonayay haddayba noocaa yihiin inaad ka fogaysay so ooma ekaanayso inaad xoolo ku raadisay awlaaddaadii so ooma ekaanayso saa haddana sa ay tahay ma xukumin mas'alada waa arrin qoys waxay u baahan tahay in intii ninka iyo zawjadaba la arko waxbaa laga yaabaa inay isku diidan yihiine in la dhex galo oo la soo dhoweeyo oo gabadhuna bal waxa ay tirsanayso in la dhegaysto oo ay arrinkaa u samaysay ninkuna bal waxa uu tirsanayo in la dhegaysto oo wax ku diidan yahay marka u dambaysana khulaasada iyo gebagabada meel la iskugu keeno oo ama ninku loo garaabo ama gabadha loo garaabo oo la yidhaahdo gabadhu arrinkaa way ku qasbaneed maxaa yeelay dhib intaa la eg baa haystay isku soo celceliyo weli kama quusanin reerkaa in life loo dhex galo oo reerkaasi qaraabo iyo qoys iyo culummada ay dhex galaan hase ahaatee waadada guud gabadh yahay zawjkaaga ku celi carruurta nin yahow carruurtaada biilo diintana bar carruurta diintoodana bar idinkuna reer ishaysta gacmaha berri in la dhintaa laga yaabaaye ama qof uu dhinta ee carruurta yaan waddan gaalay joogaane yaan carruurta gacanta loo gelin ma ogtihiin horta weebkii aanu dacwada ka faafinaynay qoysaska aanu sidan oo kale u dhisaynay inay gaaladu xidheen way xidheen limaada sababta loo xidhayo waxaa weeye wax kastaa ku maraamursoodeene in wax la dhiso oo reeruhu ishaystaan oo carruurtu ay dad muslimiinoo dhaba ay noqdaan waa arrimaha ay qolalkan iyo dacwadan iyo culummadu ay ka shaqaynayaane dad badan baan rabin gaalo iyo munaafiqiin isbiirsatay iyo jawaasiis baan rabin sidaa daraaddeed war berri ilmahaba waad ka dhiban kartaaye gaalaha u gelinin ilmahaaga carruurtaada gaalo gacanta u gelinin sababna ha ugu noqonin durriyadaadu inay gaalo ka soo dhexbaxaan sabab ha ugu noqonine ilaahay u toobadkeen nafci wixii loo qoray way cuni oo wallaahi ku qanac zawjkaaga waxa uu ilaahay kugu soo dhiibaya tabaaraka wa tacaala wixii intaa kaaga badanna waxaad heli kartaan war haddee meesha minasoodhada laleeyahay caydh baa laga qaataa inaabad u soo wada guurtaano odaygiina yimaado ayadana timaado wixii haddee shaqa'ana aad carruurtiina ku biilataan wixii shaqada idinku adkaatana dee meelaha caydha laga qaato dadkaa fara badan ee muslimiinta siday u nool yihiin inaad u noolaataan oo diinta waafaqsan intaas ayaan idinkula talin lahaa inaad qaadataanna waan rajaynayaa haddii aad maqashaan labadiinaba wallahu aclam